maanta ma jiro wiil Soomaaliyeed tusaale aniga soo qaad maanta ma jecli walaashay oo madax qaadan oo yacni nin ajnabi u niikinaysa in baraha bulshada la keeno oo wax ceeb ah. marka gabar kasta oo Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa inay yacni dhowrto dhaqankeena suuban iyo diinteena Islaamka oo waxyaabaha qofka wanaagiisa iyo sharaftiisa kor u qaadaysa. Soomaaliyeed leh diin iyo weliba dhaqan dadku waxay leeyihiin marka ugu horeysa diin iyo dhaqan iyagu u gaar ah. marka labaad waxa weeyaan waxa jirto in dadku ay ka falceliyaan waxyaabihii markaas jiray. haddaba wiil Turkish ah oo ice cream ama jalaato iibiya ayaa muuqaal dansina waxa uu ka duubay gabar Soomaaliyeed oo aan xijaabnayn. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ميل كستا جوجتان سو دوادا وصاحبكينا عبد الرشيد عيسى علي قنعيه waxaan filayaa inaan caafimaad qabto ilaahay ha ku siyaadiyo qof walba xanuunsanna ilaahay caafimaad ha siiyo kii muraad lehna muraadkiisa ilaahay ha u sahlo. hagaag saaxiibayaal caawa waxaan jeclahay inaan ka hadlo qodob yar oo maanta baraha bulshada Soomaalida dhexdooda si weyn loogu falanqeynayay. qodobkaas waxa uu yahay dadka qaarkii waxay difaacayeen sharafta gabdhaha Soomaaliyeed leh diin iyo weliba dhaqan dadku waxay leeyihiin marka ugu horeysa diin iyo dhaqan iyagu u gaar ah. marka labaad waxa weeyaan waxa jirto in dadku ay ka falceliyaan waxyaabihii markaas jiray. haddaba wiil Turkish ah oo ice cream ama jalaato iibiya ayaa muuqaal dansina waxa uu ka duubay gabar Soomaaliyeed oo aan xijaabnayn taas oo dadka Soomaaliyeed ay ka bixiyeen oraahyo kala duwan. haddaba waxaan eegi doonaa ani ahaan wixii aan ka oran lahaa iyo sidoo kaleeto culimada Soomaaliyeed wixii ay ka yiraahdeen in gabar Soomaaliyeed oo aan xijaabnayn inay u niikiso nin ajnabi ka ah. ninkan Turkiga sida caadiyan goobtiisa jalaatada qofkii yimaada waxa uu inta badan ka ciyaarsiiyaa kadibna waxa uu ka iibsadaa jalaatada waana laga ciyaarsiinaa waana laga iibsanaa waa sheeko. marka arintan u soo laabto marka ugu horeyso tore waa wax aad iyo aad looga xumaado in dadkeena Soomaaliyeed inta badan ay ka hadlaan arimaha dhacdooyinka caynkaas oo kala in gabar Soomaaliyeed oo xijaabneen nin iyadoo aan qabin ajnabi ka ah inay u niikiso iyadoo weliba wax iibsi uu yacni ugu tagtay oo wax laga xumaado. dhaqanka Soomaaliyeed markaad eegto markaan annaga isguursanayno waxaa laga yaabaa in reerku ay yiraahdaan reer hebel lagama guursan karo reerka wiilka yaa waa gabadha yaa waa nama soo gasho. nin wadan kale u dhashtay oo yacni dhaqan iyo diin midna aan haysan iyadoo xijaabneen يعني حتى عورده قيب كميدا la arkaayo inay u niikisanaa dadka qaarkii caadi ay u tahay laakiin inta badan Soomaalidu waa ay dhaliileen. waxa ay kale kommentiyaal fara badan oo habluhu ay leeyihiin waa caadi qofka dooqeeda iyada iska leh. maanta ma jiro wiil Soomaaliyeed tusaale aniga soo qaad maanta ma jecli walaashay oo madax qaadan oo yacni nin ajnabi u niikinaysa in baraha bulshada la keeno oo wax ceeb ah. marka gabar kasta oo Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa inay yacni dhowrto dhaqankeena suuban iyo diinteena Islaamka oo waxyaabaha qofka wanaagiisa iyo sharaftiisa kor u qaadaysa. waxa jira rag badan oo baraha bulshada caanka ah kuwaas oo qaarkood iyana lagu dhaliilay inay yihiin rag aan weli guursan. waxa la yiri doobka sidiisaba dareen baan dilay doobka sidiisa dareen baan dilay diin la kabiir oo damaca dilay doqol loo madara la yiri ma garateen lagama yaabo inuu yacni dhaqan iyo waxyaabo caynkaas qofkaas uu ka hadlo wuxuu ka hadlaa waxay tahay yacni gabar asaagiisa oo nin kale oo jalaato iibinaya yacni inay yacni maxaa la yiraahdaa u niikiso oo ay u soo baxdo. 2000 iyo waxaan jeclahay inay ahayd 7 ilaa iyo 8 waxaan aad iyo aad sidoo kale u jeclaa xamarweyne inaan ka iibsado furlaato. marka xamarweyne imaado v Roma wadadaas waxa lagu iibi jiray furlaato. xamarweyne sida ogtiin waxa degnaa jiray dadka caadka ah yacni gabdhaha markay soo baxaan
waxaas dhihi jirnay bal daawada ma garateen idinka farlaatadan iibinaysana ku qabsada laakiin hadda gabdhaheeni iyagaa wax iibsanayo iyagiyaa dharka inta laga dhigaa haddana lagu niikina alaabta hindiga camal waa waxaan yacni aqliga galeen soomaalidu abwaanadii hore waxay yidhaahdeen hablayahow hamiga guur waa howla badan yahay waa sallama huraan ragga iyo haweenkuba hirashada ku leeyihiin xanaqaad ku gaaraan habsamaanta guurka gabaray haddaad yacni baaluqday oo waqtigaaga la gaaray oo ciyaaryahan aad isku aragto inaad garoon geli karto dee wiil soomaaliyeed oo asaagaaga iska guurso si sharaftaada iyo sumcadaadaba kor ay u noqoto bal ila daawada muuqaalka hadal yani igula daalin waxaan sii raacin doonaa culamada Soomaaliyeed waxaan arkaa wiilka yar ee daaciga oo isna ka hadlaya gabar Soomaaliyeed oo yacni dharkii inta tuuratay la walaaqayo yacni lala ciyaarayo oo wax aad iyo aad fariintayda maanta waxay ku socotaa gabdhaha Turkiga hadaad dhageysanayso hadaad isdhaafinayso iyo hadaad sheer gareynaysana run ahaantii waa mid kolley adiga ku anfacaysa un weeya farintayda maanta waalidkay ku socotaa waalid gabadhaada ma ka warhaysaa waxbarashad u dirsatay inay wax ku barato maadi jaamiciyad inay noqoto computer inay fadhiisato walaakin sharafteedii xabad jalaata inay siisatay ma lagaaga sheekeeyay masal lagu sheegay inaan Suuriyaan ah oo Suuriya ka yimid inuu Turkiga ka furtay meherad jalaatada gabdhaha quruxdooda lagaga iibsado jismigooda iyo jaaskooda lagu iibsaday lagu dhaafiyo laakiin gabdhaha Soomaaliyeed inta way ka wanaagsanayeen barigoor waa ka damiradkaayeen hadaad jalaata doonaysaana meherad jalaata anaga idii furanay idinku saasturaun waxaan idin leeyahay waalid waxaan idin leeyahay sidii ubadkiinu adduunyada u tacbi lahayn hadaad maal iyo xoolo iyo raganimo iyo fikir baad geliseen tii aakhirana aad ilowdeen waxaad ogaataan nabigu inuu yiri calayhi salaatu wassalaam kulligin raaciyin baatihiin kulligiina mas'uul waxaad ka noqonaysaan waxaad raacayseen maalinka qiyaamana waa la idin weydiinayaa ogaada thumma la tusaluna yawmaydin 'anil naciim waxa ilaahay idin weydiinayaa waxa ilaahay idin ku nicmeeyay waxa ilaahay idin weydiinayaa ubadkiina ilaahay idin weydiinayaa yaa ukhti shalay kan wada joognay maanta ma noola maanta waa dunya barina waa aakhira weeya hadii ridaha ilaahay raalli ahaanshaha ilaahay uu ka raalli noqonayay aad ku doorsatay xabad jalaata inaad adigu cunto subhanallah aday ku taala cadaabka ilaahay dad u adkaysanayso marxaba laakiin waa kula talinaya sida kuma wanaagsana hanneekini